qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii ku-meelgaadhka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha komishanka doorashooyinka qaranka oo ah sidan: 1 xisbiga wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta boqolkiiba 63.92. 2 xisbiga kulmiye oo helay 255,519 cod oo u dhiganta boqolkiiba 35.34. xisbiga ucud oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74. halkan maanta u fadhinaa ansixintii doorashooyinkii ka dhacay dalka 13 November 2024. doorashadaasi laba isugu jirtay, marka laba doorashay ahayd. midna waxay doorashadii madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku ay saddexdii xisbiye hore ku tartamayeen. midna waxay ahayd doorashadii ay ku tartamayeen xisbiyadii hore iyo ururadii cusbaa. marka labadaba waa laba doorasho kala duwan bay ahaayeen oo laakiin isku mar la qabtay oo aan isku dabeecadna ahayn. sida uu sheegayo qodobka 162 faqradda koowaad ee xeerka wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/23/2023 qodobkaasi wuxuu sheegayaa in maalinta ay guddiga doorashadu ku dhawaaqdo natiijada hordhaca la siinayo cid kasta oo cabasho haysa 7 cisho gudahood inay ku soo cawdaan. marka haddii 7 cisho gudahood lagu waayo maxkamadda sare way ansixinaysaa. marka maanta waxa ku dhan muddadii la siiyey cid kasta oo cabasho haysa, ama iyagu ha soo cawdaan ama yaanay cabanin. marka saa awgeed bay maxkamadda sare ee dastuuriga ahi ay u ansixinaysaa natiijadii kale ee ururadii iyo axsaabtu ay ku tartameen ee ay saddexda xisbi soo baxayeenna sida uu sheegayo qodobka 165 ee wax ka bedelkii kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 91/2023 wuxuu sheegayaa iyaga in 10 cisho la siinayo. 10 cisho ciddii soo cabanaysa. marka iyaga weli 2 cisho u hadhay. maalinta sabtidaana haddii la ku beegan tahay, marka isagana maalintaas lagu dhawaaqi doonaa. marka maanta tan aynu ku dhawaaqayno wax weeyaan waa doorashooyinkii madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha weeye. marka maxkamaddu go'aankaas ansixintiisiba ayay ku dhawaaqaysaa maanta. jamhuuriyadda Somaliland maxkamadda sare dastuuriga ah dacwadda nambarkeeda masada xariijin la xariijin 05/2024 kuna beegan 27 bishii 11aad 2024 ujeedo qaraar ansixin doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland. maxkamadda sare ee jamhuuriyadda Somaliland markay aragtay qoraalka sumadiisu tahay ka xariijin xariijin 6 xariijin 210 xariijin 2024 ee ku taariikhaysan 19 bishii 11aad 2024 kana soo baxay komishanka doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Somaliland. ujeedadiisuna ay ahayd gudbin natiijooyinka ku-meelgaadhka ah ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka iyo xisbiyada qaranka ee November 13, 2024 kuna lifaaqan tahay shaxda tirada codadka natiijooyinka ku-meelgaadhka ah ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha. markay u caddaatay in howlgalka komishanka doorashooyinka qaranka iyo doorashooyinka la xidhiidha ay dhammaantood waafaqsan yihiin: 1 qodobada dastuurka qaranka jamhuuriyadda Somaliland ee ah qodobka 28aad iyo qodobka 30aad. 2 qodobada wax ka bedelkii kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 19/2023 qodobada wax ka bedelkii kaabista xeerka diiwaangelinta ururada iyo axsaabta qaranka xeer number 14/2023 markay aragtay tirooyinka codadka guud ahaan iyo gobol ahaan ee doorashooyinka madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha ee qabsoontay 13 bishii 11aad
2024 markay u cadaatay in aanay jirin wax cabashaa oo ku saabsan natiijooyinka kumeelgaadhka ee ay ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranka iyo guud ahaan hanaanka doorashooyinka u qabsoomeen oo ay maxkamadda u soo gudbiyeen musharaxiinta madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha muddadu sharcigu dhigayo oo ah 7 maalmood gudahood oo ka bilaabanta maalinta ay natiijada ku meelgaadhka ah ku dhawaaqeen komishanka doorashooyinka qaranku oo ahayd 19 bishii 11aad 2024 si waafaqsan qodobka 162 faqradiisa koowaad ee wax ka bedelka iyo kaabista xeerka guud ee doorashooyinka iyo diiwaangelinta codbixiyaasha xeer number 19 2023 markay hubisay xisaab ahaan iyo sharci ahaanba dhammaan qoraalada raadraaca ah ee xafiiska dhexe komishanka doorashooyinka qaranka iyo natiijada kumeelgaadhka ee ay ku dhawaaqday 19 bishii 11aad 2024 markay aragtay dhammaan asbaabta sare ku xusan waxay soo saartay qaraarkii maxkamadda sare waxay ansixisay natiijadii kumeelgaadhka ahayd ee khusaysa doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha komishanka doorashooyinka qaranka oo ah sidan 1 xisbiga wadani oo helay 407,908 cod una dhiganta boqolkiiba 63.92 laba xisbiga kulmiye oo helay 255,519 cod oo u dhiganta boqolkiiba 35.34 xisbiga ucud oo helay 4,699 cod oo u dhiganta 0.74 laba waxay ansixisay in doorashada madaxweynaha uu ku guuleystay mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cigaal halka ku-xigeenka madaxweynahana uu ku guuleystay mudane maxamed cali cabdi maxamuud oo labaduba ka sharaxnaa xisbiga wadani qaraarkani wuxuu soo baxay maanta oo ay taariikhdu tahay 27 bishii 11aad 2024 guddiga garsoorka 1 aadam xaaji cali axmed gudoomiye 2 maxamed cumar geele xubin 3 cabdiqaadir axmed maxamed xubin 4 axmed diiriye qaalib xubin 5 maxamed faarax siciid xubin 6 cabdiraxmaan xuseen caynaan xubin 7 sheekh cali shucayb sheekh ibraahim nuur xubin 8 yaxye cali idriis xubin 9 cabdilaahi cabdi aadan xubin 10 cabdiraxmaan xasan nuur kaaliyana waxaa ka saare ismaaciil oo kaaliyaha saraa aad ba u mahadsantihiin